بسم الله. الحمد لله إلهي وقد اسكالي انو suurta geliyay inaan qaadano cashirkii labaad ee ah koorsigani noo socotay oo ah HRM Human Resource Management. caawa waxaan qaadan doonaa chapterka koowaad haddii Ilaahay yiraahdo, kaasoo ah Human Resource Management Functions, sida u shaqeeyaan Human Resource Functions keeda sida u shaqeeyaan. marka insha Allah waan isla socono haddii Ilaahay yiraahdo. casharadii kii hore kulli soo duubnay waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen wixii oo comment iyo faalahan casharada meesha la idinku soo diro oo nala soo wadaagi kartaa had iyo jeer qofkii fahmi waayo waxyaabaha qaarkood ama meelaha qaarkood sida loo sharaxayo iyo qaabku fahmi waayo had iyo jeer way furan tahay inuu qofku feedback soo celiyo. sababtoo ah qofkii dadku waa bini aadan isku fahmi maaha. qof baa laga yaabaa inuu si cashirka markii hore looga sheego hore ka fahmo, qofna waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inuu fahmo. marka qofkii problem la kulma ama wax caqabad ay kala soo wajahdo wuu la soo socodsiin karaa. maasantiin hore aan usii galna cashirkan insha Allah. HRM horta maxaa la muhiimadu waxaa waaye inaan isla fahanno Human Resource Management oo HRM loo soo gaar xalla waa activity ama hawlo la qabto waaye taasoo lagu qorsheeyo in lagu soo jiito, lagu attract gareeyo, laguna doorto, laguna hormariyo, laguna joogteeyo human resources ayadoo wax kale aan laga lahayn. hadafka kaliya oo laga leeyahay shaqadaas waxaa waaye in lagu guuleysto organization goalskiisa. sababtoo maxaa waa dad shaqaalaha cusub haddii la shaqaaleysiiyo la soo doorto, dadkii shaqaalihii la hormariyo, la tababaro, la joogteeyo, mushaar joogtaa loo qoro, si fiican loo tababaro waxay qaban lahayn, hawshii ay qabtaan waxay sababaysaa in objectiveski ama ahdaafta laga lahaa institutionkan ama organizationkan la sameeyey ama meeshan goobtan ay u shaqeynayaan in hadafkeeda la gaaro. hadafkeeda haddii la gaarana maxay noqonaysaa in guushii organizationka uu ku haminayo inuu gaaro. marka waxaa waa activity iyo practice hawlo la qabto waaye lagu qorsheeyo, laguna soo jiito, laguna doorto, laguna hormariyo, laguna joogteeyo human resources sida dadka shaqaalihii, technology-dii, lacagihii, waxaas oo resourceski qofka oo saddexdii muhiim ugu muhiimsan in shaqaale cusub la qaato, shaqaale la tababaro, shaqaalahaas wixii la fahansiiyo, shaqaalahaas kadib mushaar loo qoro, shaqaalahaas haday shaqo si fiican u shaqeeyaan rewards la siiyo, haday shaqadii ku dhaacmaan ama shaqadii ku soo gaarto magdhow la siiyo, waxyaabahaas loo qabto. hortaas maxaa la lahaa HRM oo kaas la qeexitaankeeda waa ka marka objectivesku ama HRM objectivesku waxaa lagu determine gareeyaa ama lagu go'aamiyaa isticmaalka ugu wanaagsan ee talent iyo xirfadeed ee uu heli karo organizationka objectiveskiisa. waxaa lagu go'aamiyaa habka isticmaalka ugu wanaagsan uu isticmaalo inta xirfad iyo talent ee uu haysto si uu ugu guuleysto organization goalskiisa. objectiveska marka organization goalska objectiveska waxaa lagu cabiraa ama lagu go'aamiyaa isticmaalitaanka inta talent awoodaha talentiga iyo skillska uu haysto, dadka uu haysto talentiga leh, xirfadaha kala duwan ee uu haysto organizationku isticmaalka ugu wanaagsan habka uu isticmaalo ayaa waxaa lagu go'aaminaa objectives si uu ugu guuleysto hadafkii uu lahaa organization. sababtoo hadduusan dadkii ka faa'iideysan waa kaan soo sheegnay shaqo markii la shaqeynayo waxaa la shaqeeyaa shaqada waqti intee laga ku baxaysa, talent noocee loo baahan yahay, skills noocee loo baahan yahay ayaa leeyahay. marka shaqo kasta waxay leedahay dad xirfad u gooniya, waqti u gooniya, budget u gooniya, waxay leedahay. marka waxaa leeyahay dadkan xirfadaha leh ee noo joogo organizationka noo joogo aan ka faa'iideysano skillskooda ee available-ka nooca si aan u gaarno hadafkii aan lahayn. marka objectiveska waxaa lagu go'aamiyaa isticmaalka ugu wanaagsan ee xirfad iyo skills ee organizationka uu haysto si uu u guuleysto organizationka hadafkiisa u gaaro. taas waa asaas HRM areas jirta marka ay ka shaqeyso. marka HRM hadii la dhaho areayin mucayan ka shaqeysaa jirta oo ay aad u wanaagsan. HRM utilization marka HRM ku badan oo utilization meelaha loo isticmaalo badan waxa kamid ah recruitment waxaa shirkadan dhisnay organization aasaasanay inaan raadino dad xubno ka noqdo organization oo quality gooniya leh. dadkaas inaan soo socno waxa la recruitment. dadkaas marka hadii recruitment lagu soo qaato macnaheedu ma aha in la geenayo shaqadii si toos ah u bilaabaan ma kadib waxa la meesina imtixaan, kadib waxa la qaadanaa selection, waxa la sameeyaa dadkii in dad mucayan laga sii doorto. placement maxaa ayada laftirkeeda meel banaan in qof lagu buuxiyo si temporary loo geeyo. taas ayada waa placement. way ka shaqeysaa organization, waxa ka shaqeeya jaranka shaqaas. appraisal waxa la dhaho dadkii wax qabadkooda ilaa imtixaan lagu sameeyo, imtixaan oo iska ma garay
sababtoo bini aadam waa dadkii maxaa u qabsoomay maxaanse u qabsoomin in la ogaado. Compensation magdhow in la siiyo qofkii xal lacag in la siiyo qofkii asoo shaqada ku jiro dhaacmay, asoo shaqada ku jiro organization shaqada soo socdo dhaacmay, asoo shaqada ku jiro wax gaareen qofkii maadaama organization ku shaqeynaya magdhow aan siino in la dhaho ayadoo weliba organization HRM-kiisa ay policy gooniya ay meel u taalo policygaas ayay qofkii wax gaaro ay kula dhaqmaysaa. Workplace planning meeshii lagu shaqeyn lahaa inay qorsheyso HRM-ku areadaas ayuu ka shaqeeyaa. hadda inta area aad ka fahanto HRM waxaa waaye macnihiisa 90% waad haysaa min HRM saas inaad fahantay macnaheed saas. marka HRM intaas area waa in dadkii organization from scratch laga bilaabay baash recruitment yaa leeyahay shirkadan asaasna shirkadan yaa urka shaqeyn kara xubinka noqon kara dad mucayan in la soo sooco recruitment dadkaas in hadana la sii imtixaamo kuwa bestiga oo ugu wanaagsan in selection laga sameeyo la doorto. shaqadii ayadoo shaqadii dadkii ku jiraan oo dadkii aan dooranay ayaa mid kamid ah qof xanuunsaday qofkii qof temporary aan soo geeyay oo placement shaqadii qofka banaanada qof lagu soo gooyay abriis dadkii shaqaalaha in imtixaan oo imtixaan laga qaado qayb kii wanaagsan kii fiican kii wax ka khaldameen kii si fiican shirkada guul weyn u soo hooy iyo kii aan soo hooyin ila imtixaan. Compensation wax la dhaho magdhow la siiyo abriis imtixaanka waxa imtixaan markii la sameeyo kadib waxa la sameeyaa inta shaqaalaha si loo dhiirigeliyo waxa la sameeyaa sanadkii lacag la bixiyaa jirto oo rewards oo bonuska iyo sida lacag la siiyo. marka lacagaas marka hadii dadka shirkadaha waaweyn oo multimillionaire clients iyo dad badan u shaqeeyaan jirto shirkadaha kadib uu sii adeegan sida shirkadaha lawyers oo kale waxa jirta marka macaamiil qof soo xiraa clients si far badan soo xiraa shirkadii marka lacag far badan soo xirayna marka bishii marka sanadkii la gaaro marka waxa la siinaa ama bonus bishii marka la gaaro yaa marka waxa la sameeynaa in bonus la siiyo lacag la isku ururiyo bishii oo maalinaha wuxuu qaadan lahaa isku ururiyo bishii hal la siinaya. markaas marka taas oo ah lacag fiican oo isku kaabi karo familkiisa ku kaabi karo oo asoo wax badan ku kaabi karo oo ilmihiisa wax barasho u bixin karo sababtoo waxa laga yaabaa mushaharka qaadanaysa inuu soo kugu filan. marka bonuska iyo marka shaqaalaha marka si loo dhiirigeliyo meelahaas wax la siiyaa marka qof aan imtixaamin oo aan loogeyn wuxuu qabtay hadaan loogeyn lacag iska ma siin karo. that's why marka abriis loogu baahay qofkiina haduu shaqada isku jiro dib xigaaran magdhow in la siiyo. working place balan meesha ka shaqeynaan qofkii in loo qorsheeyo ma amaana meesha qofku xafiis nooc u baahay ma xafiis u baahay qofku waardiyaha hada xafiis u dhista ka waran soo taagan qofku wajmaanka taagna hada xafiis u dhista ka waran hadii xafiiska iska fariiso ilaa shaqadii ma qabsanayo meesha intuu iska fariisto mukeedku ku baxan baraxada ku baxda laga yaabaa inuu iska qaboobo oo iska seexda laga yaabaa. marka loogu tiragay marka work place balan meesha lagu shaqeyn lahaa in la qorsheeyo la dhaho meesha lagu qorsheeyo qofkan waardiyaha ku istaagaa qofkan dhismahan meeshaan lagu isaa xafiiska HRM intuu istaagaa xafiiskan oo financing intuu waa xafiiska oo management top management istaaga marka xafiisyadii wixii naasa u kala qorsheeyay oo meesha lagu shaqeyn lahaa laftarkeeda inaad kala ogaatid ammaankeeda waa kan ognahay HRM-ka waxa mas'uuliyadda ka saaran safety iyo health safety iyo health issues kooda ayaa waxay ka saaran tahay HRM mas'uuliyad qofka meesha ku shaqeyn lahaa caafimaadkeeda iyo nabadgelyada ay mas'uuliyad ka saaran. that's why marka workplace badan loo qorsheeyo marka meesha uu shaqeyn lahaa waa in si fiican u qorsheysan. HRM marka hadii loo areas in HRM laba waxa u kala qaadina HRM development iyo environment oo kala qaadina qaybta horumarinta in aqoonta shaqaalaha la kordhiyo cilmiga waaga wax lagu qaban jiray cilmi ka duwan maanta qaab technology wixii way sii kordhayaan cilmiga shaqaalaha in aad loo wacyigeliyo cilmiga maanta la isticmaalo qalabka ugu dambeeya la isticmaalo aqoonta ugu dambeeysa la ogaado train la si shaqaalaha tababar joogto la si shaqaalaha way isbedelaan shaqaalaha waxa laga yaabaa mid cusub ay maana qof kasta shaqada intaad ku aaminay hantida u dhiibanayd marka hore tababarto on job training waxa la tababar inta qabo meeshan kali ku si inta isticmaal ticket kan jar waxaan soo qabo shaqada intaas macaan ka qab markuu qabto kadib waxa uu soo magacaada qof supervisor oo indheeya oo shaqadu qabto korka magaca qofkaas markuu supervisor ka korka qabana hadii wax qaldo intuu shaqada ku jiro waa laga saxayaa marka development in la sii horumariyo shaqaalaha horumar loo sameeyo methodology habka technology isticmaal software-radii 2017 isticmaal jiraan 2011 laga bedelo 2019 ku cusub loo keen marka in packages habka ku shaqeynaan si ka duwan qalabyada ay ku shaqeynaa kombiyuutarada ku shaqeynaa haduu kuwa loo space video kuwa horumarsan haduu yahay in horumar loo sameeyo oo kombiyuutar cusub loo keeno advance loo sameeyo marka maxaa horumarkooda naga shaqeeyo HRM environment ay jirto marka environment waa iska dareemi kartaa waa goobta lagu shaqeynaa shaqadii job enrichment shaqadii enrichment lagu sameeyo shaqadii la badiyo shaqooyinka la badiyo job enlargement shaqadii in la xoojiyo la balaariyo shaqadan waxa la dhahay waxa maxay shirkadii in job enlargement iyo shirkadan u qabto waxay bank hal branch kala loo furay shaqaalaha far badan ay maal marka maxaa waa job enlargement organization development in organization ka horumar loo sameeyo oo loo horumariyo sababta intaas way ka shaqeysaa HRM kalabaas area HRM functions marka si guud marka loo fiiriyo HRM functions maxaa kamid ah human resource plan kamid in balaan loo sameeyo maxaa in bili aadan u baahna ma qof wada u baahna
technology noocaan u baahana lacag intee leeg aan u baahana in la dhaho human resource balan noqdo dad intee leeg u baahana recruitment waxa la dhaho inaan sameyno recruitment maxaa waaye in dad mucayan aan usoo doorano booskan dhahno xubinay ka noqonaan organizationkan selection waxa la inaan sameyno dadkaas mid kamid ah ka doorano compensation and benefits qofkii hadduu shirkada soo ku jiro ama soo dhaacmo ama wax gaaraan faa'iidadii iyo wixii lacag uu shaqeyn jiray in la siiyo asagoo lacag la siinaa gurigiisa loo geynaa mushaarkiisa la siiyo ama waxyaabo dheeraad la siiyo oo mugdhawa la siiyo performance appraisal in organizationku dadka managerska la siiyo go-aan oo HR decisionska ay ku qaadan karaan oo si fiican looga taagan train and development tababarka iyo horumarinta in laga qayb qaato shaqaalihi si fiican loo tababaro la horumariyo employee relations shaqa macaamilka shaqaalaha xiriirka ka dhaxeeya in oo la wanaajiyo oo shaqaalaha iyo la shaqeeyaha in xiriirkooda xiriir wanaagsan ka dhaxeeyaan labor union waxa la jirta ay laftirkooda gudiyo shaqaalaha jirta gudiyada shaqaalaha iyo organizationku inuu xiriir wanaagsan leeyahay safety and health nabadgelyada iyo caafimaadka goobta ku shaqeynaya shaqaalaha laftirkooda inay ka shaqeyso HR askar marka maxaa kamid ah HR department marka maxay ta qabataa HR department iyo shaqooyinka qabataa inay taageerto managersku inay HR responsibility ka taageerto managersku maxaa waa inay taageerto managersku inay HR responsibility shaqaalaha mas'uuliyadooda HR ku xilla xiriir mas'uuliyadana ka sababtoo di kursi loo baahan yahay qabka loo gadan lahaa lacag wuxuu ku badan yahay inay ka taageerto intaas u baahan shaqaalintaas kulaas u baahan shaqaale intaas leega u baahan 10 qof oo u baahan shaqadan qofkaana laga burnaaya burnaa qofkii maamulka burnaa waa inuu go'aan HR inuu leeyahay responsibility inuu qofkaan uu dayacay oo shaqadan qaban waa inuu ogyahay marka HR waa inay ka taageeraan waxyaabahaas go'aan qaadashada xagga waa inay ka taageertaan xagga responsibility inay caawiyaan organizationku inuu gaaro ama helo hadaf objectiveskeeda ayagu waliba u design gareynaa programyo oo HR oo macayna programyo HR oo design gareynaa organizationku si uu gaaro baahidii ahdaafta uu lahaa organization managerska iyo HR department waxay u baahan yihiin inay si guud wada shaqeeyaan sababtoo managersku waa kuwa go'aanka ka qaadanaya shaqaalaha joogitaankooda iyo bixitaankooda kuwa go'aanka ka qaadanaya shaqadan qabashada iyo qabashadaanteeda waa kuwa go'aanka qaadanaya marka go'aanka guud maadaama ay kasoo baxay waa inay HR department si fiican ula shaqeeyaan sababtoo HR department shaqaalihi dhan iyo wixii u baahnaa dhan nimankaan og go'aan qaadashadiina managerska askal marka waxa waa inay si fiican wada shaqeeyaan oo midka kale wuxuu u qabto uu ogyahay waa macnaha midka kale wuxuu qabto ogyahay marka wax noqonaysa inaan go'aan qaldan aan la qaadanin shaqaalihi aan lagu tumanin shaqadii aan la dayicin aan go'aan qaldan la qaadin organizationkii aan la burburin marka taas waxa HR-ka iyo managersku inay wada shaqeeyaan si guud inay wada shaqeeyaan functions of HR marka functions of HR employment-ka kamid marka waxa HR-ku functions ay leedahay employment-ka kamid shaqaaleysiinta train development-ka kamid payment and reward kamid mushaar bixinta iyo ka jaayisiinta qofka shaqaale si fiican u shaqeyn la dhasho jaayisada inta la qaado health safety caafimaadkooda employee service welfare dhaqaale adeeg shaqaaluhu inay helaan iyo caafimaad iyo welfare-kooda iyo caafimaad qabkooda shaqaalihi waxay u baahan yihiin waxa la shirkadan qofkan wuxuu ku leeyahay qaduu ku leeyahay adeegyada uu leeyahay cabitaan uu ku leeyahay cafe uu leeyahay inuu dule loo keeno la qaato qofka ku shaqeynaa loo geeyo waa service adeegyada qofku baahan productivity improvement scheme qaabka oo productivity wax soo saarka iyo improvement u sameynaysa scheme-da qaabka dhismeedkeeda inay go'aamiyaan ay laftirkooda waa kamid industrial relationka industrial iyo meelaha qolooyinka kala xiriirka la dhaxeeya inay hubiyaan waa ay laftirkooda waa waxyaabaha HR-ka shaqadooda ka mid tahay factors influence HR department marka waxaa factor fara badan ay influence kareen waxaa kamid ah marka HR department size of the organizationku intuu leeyahay cabirkiisa way go'aamisaa macnaha way saameysaa HR department unionization of the workplace unionada ka jira gudiyada shaqadii shaqaalaha ama wasaaradaha shaqadii shaqaalaha ka jira meesha lagu shaqeynaa laftirkooda HR way saameysaa milkiilnimada company-ga way saameysaa HR macnaha HR department yara u baahan ana hal xafiis HR ma u baahan in qofka milkiilaha company-ga asaga go'aan ku leh philosophy of the top management philosophy ama falsafada ay ku wadaan top management-ga go'aanka dadka ay ka go'do management-ga go'do ee organization-kuna way saameysaa HR yahay marka insha Allah inta ku soo gudbinaa caawa hadii la yiraahdo insha Allah wixii su'aalahan waa soo wadaagi doona insha Allah in dama insha Allah iyo wixii kale ma halkan ka bilaab doona. Assalamu alaykum.